نشيخ بري قسم وغشيكي حولي من عالمة أو أرضيدو أهو جعلين حرتها أهو جعلين إيش كذا حرت المجتمع ونم أهو جعلا أخلاق ونكسن بإلهيسي تقوى بإلهيسي علم بإلهيسي الله كعبس بإلهيسي لكن إنك وحي إلهي كوها جاجية إسلام كل وضبيعات أذن ومركو انت ومقالة سعودنا كبيه سينو قاتل الله ما أقوله مسألة كنت كان ينو قاتل الله ما أقوله أقل كمركو قالنا إسلام تكون شقيسة dari buu karay biyuhu dhaamin dabku shidi iyada dhanbu cuntada siisiin markaas ay oranaysaa magaalada sheekh bay ku haysataaye aniga arteeda shaydaan baa tahay khidmad bay oran hadalka keeni ma uu khidmayno uu khidmaya una ma hadlo ma sheekayo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa leeyay markii dambe waxay ku tiri anu hadee toola waan daale xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaamay ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow astur ilaa haddii la ogaado sheekhiyo xaabo guraya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysatay inay kaarqabtadan waa maxay sheekha dirata walla habaarka ku dhici taabo markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta aadii xaaska aad iga dhigtay umul ciyaalka ilaahu ha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadhay buu marka xaabadii buu soo guraya dhul cilmi u tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyay biyihii buu dhaamiyay ilaahu aniga islaantaas ilaahu islaantaay umada kale ilaali buu libaax socdo un baa u yimid hor fadhiista leeyahay sheekh xaabadii qurihii buu saaray libaaxii biyihii dhinaca kale ka soo saaray magaaladii wala soo maray sheekhu libaax wata markaas la yiri awal ba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo la waan ogeyn inuu ahaaye maanta ba karaamadiisa daahirta leh albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka khawsto libaax way aragtay alaabtu soo siday ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibu markaa libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaa bay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rabteen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya inna kayda kunna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay dameer fool xumaad wata maanta xagga ka keentay iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo ma aragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaa bada sheekh xaabadii iyo biyihi way naga dhamaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha allah ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray war inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yidhi wuxuu yidhi libaaxii islaantii hore iska lahayd nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiyay innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aad leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadka guriga jooga caaisha radia allahu canha baa nabiga la weydiiyo lagu yidhi nabiga akhlaaqdiisa ka waran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nabigu karkaran jiray tiri kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray
neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tiri laakiin salaadu hadday gaadhay tiri caaisha nabigu salaadu uu soo bixi jiray bay tiri ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhaahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dharigay nin karana muu jiraa aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay inuu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeyey ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayn xaasaskii rasuulkeena u naxariis badnaa u dhibrin badnaa marka qiyamka wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay masjidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah ani zinada ha lay fasaxa buu ma deyn karaye wallahi inna lillahi warbaxa markaa buu nabigu ii daayay soo dhawow hala walaalama kula dhasheen haa way la dhasheen gabdha walaalahay way la dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysa inaan kuu fasaxo may waan ku dhiman buu dhimashaa ka aqaana markaa aad tiri ii fasax zinada kaba soo qaad haddii zinadii laguu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayakuna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola tagay iyakuna raalli kalama abuu ku yidhi rasuulku markaa yaa rasuulla haddaba ii ducee markaa buu nabigu yihi soo dhawow halkaa buu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaantaa uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali dembigiisana ilaahu dhaaf buu rasuulku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin acraabi nin reer baadiya ayaa masaajidka dhinacaa dambe intuu istaagu kaadidiisii masjidka cawrada intuu la soo baxay buu ku kaadiyey markaaba saaxaabadu ku yaaceen markaa buu nabigu yihi dacuuhu dhaafa buu nabigu yihi daaya buu nabigu yihi kaadida ha ku kala goynine meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba buu nabigu yidhi isagana iigu yeedha buu rasuulku yidhi nin acraabiyo reer baadiya oo magaalada madiina ku cusub oo lacalla laga yaaba inuu u yimid diinta islaamka inuu barto oo xishood weli aanan qalbigiisa xishoodku gelin iimaanku weli qalbigiisa uusan gelin diinta islaamka weli aan waxba ka garanayn waa masjidkii nabi maxamed cawradiisii kula soo dhex baxay kaadina ku talleejiyey masjidka dhexdeeda ayuu nabigu saxaabadii ku leeyahay dhaafo daaya isagana aniga iigu yeedha meeshuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba markaa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkani waa masaajid weeyaan waa meel loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo keliya bas waa meel daahira salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu dhex akhristaa ilaahay baa lagu dhex xasuustaa iyakiina wuxuu ku amray halkii uu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin baa nabigu yidhi ummaddaydiyey asxaabtaydiyey waxaa ilaahay adduunyada u inii keenay inaad ummadda xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan ilaahay adduunyada iniima keenin buu rasuulku yidhi bashiruu walaa tunafiruu yasiruu walaa tucasiruu bashiruu war ummadda khayrka u bishaareeya buu nabigu leeyahay walaa tunafiruu ummadda khayrka ha ka firxinina ummadda naxariista ilaahay ha ka quusin ummadda infiraar ha ku ridin ummadda khayrka u bishaareeya oo waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa zamankani waa zamankii islaamku soo noolaanayey waa zamankii saxwadda islaamigu ay soconaysay qof diinlaa la doonayaa qof diin yaqaanaa loo baahan yahay qof dadnimo leh ayaa iman doona in talada ummadda loo dhiibto cid walba ummadda hoggaan u qabani maayo ummaddani waxay qaa'id ka dhigani doontaa ummaddeeda taqaano oo qiimo leh oo ilaahay rasuulkiisa taqaana bashaaree ummadda khayrka u bishaaree waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa xanuunkan la sheegayo may ilaahay baan haysannaa ducadaa ilaahay noo aqbalayaa sadaqadaa bixinaa ilaahay nagaga qaadayaa ducafaa masaakiina baan nahay ilaahayna dayici maayo ummadda khayrkaa loo bishaareeyaa ummadda wax ka nixiya looma sheego ummadda rasuulka yasiruu walaa tucasiruu fudaydiya buu nabigu leeyahay
haddaad wax sheeg ummadda u fudaydi haddii talo ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhibri buu nebigu yidhi walaa tucasiruu ha ku adkeen ummadda talada ninka ummadayda amar ilaahay ninka ummadayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nebigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas-uuliyiinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaya imaa ducadii nebiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilaahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilaahay garabkooga ka baxaya iyakana marka dariiqad buu nebigu noo jeexay dariiqatu lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeydii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu waa kaa jidkii toosnaa soo raaca la leeyahay toosan yahay waxweecad ma leh ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aad u qaadato noloshaada adduunyada iyo taakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga daynayay buu ahaa markaasuu nebigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka ula cunayay iyaka ula fadhiisanayay ula safrayay ula soconayay kii u yimaada ee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo 3 jeer buu nebigu salaamta ku celinayay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah 3 jeer kelmad hadduu ummadda u sheegayo 3 jeer buu nebigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nebigu yihi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik dabaqad kasta ummadda aad ugu jirtaa saaad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay raacun bas taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa ninka dhallinyarada labada waale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa xaasku ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd shareecadda way noo sheegtay qofka saacad aad wada safarteen saacadda aad la safarteen walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay diin dhammaystiran maxaa layna siiyey diin dhammaystiran say diintaa nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqaynaa waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa waa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa waqti lagu bixiyaa dhaqaalo lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliyaa oon la aamusin haddaad qaylido waa lagu iman haddaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaar soo jeed mise way seexdaan ya soo jeed aydii baa isku timiday way tashadeen waxay yidhahdeen anigo dadkao dhan habeenkii khalqiga o dhan habeenka waa jiifsadaane way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wax o dhan way hooyanayaane innaka maxaa ina wareejiye waata aydu habeenka way wareegtaan soomadarka salaada fajr markaa ka baxnay seexdaan baa la yidhi habeenka o dhan bay qaylayaan xaggan u kaciy xaggan u kaciy xaggan u kaciy waxay ku tashadeen baa la yidhi khalqiga inay wax la qabaan ay wax la wadaagaan oo habeenka inay iska seexdaan tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay tuugtii baa magaalada usoo dhacday ila aygu habeenkii muxuu sheegaa tuugtuu sheegaa tuug walba aqalku ku hagaagay ba wax ka dhacay baa la yidhi tuug baa markaa aqalku kusoo hagaagay wuxuu is yidhi kuwan waa fuqaraa waa masaakiin aqalkooga wax ma dhex yaalle ur gacan yar
ومدوب دوك ما أنا أركايو كيش كوريدو أي يرو مركب ماشى الفرديات ده وصل له سوري مبتة أي دي معي سوري الله سهل له سوري أي جيب كوري تكيش قال لي بناك يقولت ولا بحال نو ولا بالحالة أي دي بيلاقي نجدي فيه ولا حالة شقتك صادق لعن بالذهب بالدر بعيد أنا وأقل يرى ضد ضعفاء ومساكين أكو هجاجو أرجع يرى ما كسر هلين كيش كي واحد كسر مع أير صوت تعب خسارة ما وحناقي وروان تعب خسارة وان تعب خسارة لو جيك عمو كجي بأيدي فأوال كابو وعلى أيدي يقول لك جبان وقعان جبان أيدي وي مدوي لقوان كي هبان هورا لك يعني هلا كنا ناخذ ده بيقول صليا ومحل لوغا نقوم بالليلو وحيد وحيري قيل ذا هبين كي أن قيليني أنا كان الدم بينه هيد ومدنا الدم بيوهيد اسمع أيها المسلم والله حق انك كامسب النبي يقول والشيطان افلم رسولك باطل كما انت من والبكم موقدا هذا الدعاء نقن ان لم تكن داعيا فتكون مدعوا هذا ادو مد خيرك ugu yeedhin هذا شرك لو ugu yeedhiyo ugu inaan yeedhna loo baahan yahay qayla ku nabad galayna hadaada mustasmiya hadaada mustaadigan waa laga aamusi maalinta ka dambeysana umada khayrka wada way yaraan doontaa ogaada marka inaan dacwada u kacno qayladu waa dacwada weeyaan oo shaqada diinta culimada kaliya aan ku dayne caamadeena culimadeena dhalinyaradeenna odayadeena tujaarteena fuqaradeena shaqaalaheena madaxdeena mijaheena diinta dadaalkeena aan gacmaha isku qabsano niyooda insha Allah dhahada oraya niyooda bal gacanta taago inuu shaqaale diineed oo la aqbalo ilaahay ka dhigo Allah inaga dhigo soo diyaar garooba anagu khamiista boosaasan u soconaa ijtimaaci boosaasa khamiista dhici doona afar bilood iyo 40 jamaacado badan baan rajeynaa inay ka baxo ilaa 100 jamaaco daayinkuna caasimadii waxaa tihiin wadankee soo diyaar garooba jamaacada keena insha Allah wada muslimiin